السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada dhamaantiin cashir yar maanta waxaan idin waday aan aragtay saas u badnayn laakiin u fiican dadka maaragtay javascript ku cusub oo raba inay ogaadaan maxaa la yiraahdaa sida javascript ay uga dhigto webpage interactive. haddaan button ku dhufano kale kolba wuxuuna siinayaa waxa la yiraahdo random color ama color maxay ahayday random ayuu kolba soo tuuraya waad ku dhufatidba. marka waxaan sameynaynaa folder ayaan sameysanaynaa. folderka waxaan bixinaynaa JS playground iska dheh playground. marka folderkan waxaan ku furaynaa Visual Studio Code. kadib waxaan sameysanaynaa maxaa la yiraahdaa laba file ayaan sameysanaynaa. mid waa index.html kan kalena waxa weeyaan index kalena waxaan ka dhigaynaa index.js. marka html-ka waxaan sameynaynaa shift iyo waxaan isla taabanaynaa exclamation mark si uu inoo siiyo maxay ahayday shift iyo exclamation mark ayaan isla taabanaynaa si uu inoo siiyo boilerplate-kii html. halkan waxaan ku qoraynaa JS interactivity. okay, and bodygan waxaan u baahanahay button bas. button waxaan ka dhigaynaa change background color. okay, kadib save ayaan leenahay. waxaan isku xidhaynaa javascript-ga iyo maxay html-ka. marka waxaan leenahay script. marka fileka halkaas ayaan ku qoraynaa oo ahaa index.js. intaas markaan sameyno filekeena waxaan tagaynaa javascript-ga function ayaan qoranaynaa. functionka waxaan u bixinaynaa random color. halkan waxaan ku qoraynaa waxaa jira waxa hexacode-ka la yiraahdo ee maaragtay hadda markaad rabtid inaad color qortid oo kale wuxuu doonay ha noqdo colorka noocan oo kale hex code la yiraahdo saas oo kale ff colorkaas oo kale ayaan maxay ahayd variable ku kaydinaynaa. marka colorkaasi wuxuu ka bilowdaa eber 9 ilaa 9. one string waan ka dhigaynaa. eber 1 2 3 4 5 6 7 8 9 iyo abcd-da oo iyaduna ilaa f ah. abcd e f. marka waa 16 xaraf
nabaradii iyo letters isku jira. waxaa kaloon horta magacaan u bixiya halkan isku degdegay letters ayaan u bixinaynaa. kabacdi number boundiga yare la socda calaamada yare boundiga la socotana waxaan gelinaynaa iyadana waxaan u bixinaynaa color variable ayaan kusoo fikraysanaynaa iyadoo string ah calaamadaas ayaan sheegayaa. kabacdi si aan isugu daro numberadan iyo boundiga loop ayaan ku sameynaynaa for loop. okay for loop ayaan ku sameynaynaa. marka variableki ayaan sameysanaynaa. variable class oo ka bilaabmaya 0 wuxuu soconayaa ilaa 6 jeer 0 ka bilaabanaya. marka waxaan leenahay I is less than 6 marka 0 ilaa 6 ilaa 6 wax ka yar. kadibna waxaan ku sameynaynaa increment kadib halkan waxaan isku daraynaa randomkiina waan sameysanaynaa. waxaan leenahay color lagu daray letterskii letters. kabacdi waxaan ka dhigaynaa waxaan u baahanahay random color. marka waxaa jira math object floor methodka wuxuu sameynayaa math dot randomka ayuu wuxuu ka dhigayaa number caadi ah oo pointiya inay yeelato ayuu diidayaa. okay waa kabacdi waxaan u baahanahay waxaa weeyaan mise xaraf lagu dhuftay ayaan leenahay markaas 16. okay marka variablekan ayaan return ku sameynaynaa si vacation kana marka aan u isticmaalo. marka waxaan leenahay variableka color return inoogu samee. marka save ayaan dhahaynaa. anana waa colorka u diidan yahay. ama halkan aan spelling khalday. okay marka save ayaan dhahaynaa. vacation kale ayaan sameysanaynaa oo kii colorka bedelaya. vacation change color. marka waxaan leenahay let new color equal to functionkeena ayuu lamid yahay. functionkan kor kusoo sameynay ahaa random ayuu lamid yahay. kabacdi waxaan sameynaynaa domka haddii aad maaragtay dom manipulationka sida loo sameeyo hadda taqaanid. waxaa jira document oo global object ah document. kabacdi wuxuu leeyahay property la yidhaahdo bodiga oo dhan ah ayaan bedelaynaa iyo stylekii oo css ka ah
stylekana kadib bacdi waxaan rabnaa inaan bedelo background colorka. Okay, marka background colorka waxaan ka dhigaynaa variablekaas aan soo sameysanay ayaan ka dhigaynaa oo ahaa new color. kadib save ayaan leenahay. marka haddii aan hadda aan fiirino websitekeena open with live server, marka CSS style ama sameynin hal wax baa noo dhiman halkan buttonka, yani waxaan dhegeysanaynaa clickta oo maxaa la yidhaahdaa event listenerkeena waxaa weeyaan on click. marka functionki halkan change ahaa, change color ayaan u yeedhaynaa. okay, marka save ayaan leenahay. okay, marka haddii aan hadda save dhahno marka colorkii bedelayaa. buttonkana halkaa waxaan ku keeni karaa waxaan sameyn karaa halkan yar baan CSS baan u sameynaynaa oo style ah. marka bodyga ayaan flexbox ku bedelaynaa. flexbox ayaan isticmaalaynaa. marka display ayaan leenahay flex centerka haddaan rabno inaan geyno justify content waxaan leenahay center align item oo asaguna ka verticalka ah, vertical align ku sameynaya. center ayaan leenahay. marka haddaan save dhahno fiirino halkaas ayuu tegay buttonkii. marka marginka buttonka haddaan rabno inaan keeno buttonka ayaa waxaan ka bedelaynaa button marginka ayaa waxaan leenahay margin top waxaan ka dhigaynaa about maybe 200 pixels ka dheh. border radiuska ee buttonkana waxaan ka dhigaynaa 50 pixel. waxaan kala noo dhiman paddingkana waxaan ka dhigaynaa 15 pixel. ayaan ka dhigaynaa. kadib save ayaan leenahay. okay, marka hadda buttonka halkaas u yimid, laakiin calaamadaas ayaan rabaa inaan ka bebeeyo outline-ka. iyo markii bahalka aan saarayno cursorka waxaan ka dhigaynaa pointer ayaan ka dhigaynaa oo gacan yaraa soo baxaysa markaan dul dhigno. waxaa kale outline-kana waxaan ka dhigaynaa